iyadoo guud ahaanba geeska Afrika ay saamaysay xaalad adag oo dhinaca abaarta iyo jilaalkii dabada dheeraaday. roob yaraan ayaa dhowaan dowladda Somaliland gaar ahaan hay'adaha iyo wasaaradaha ku shuqul kale ka hortagida aafooyinka bani'aadanimo iyo kuwa dabiiciga ayaa waxa ay u direen gobollada iyo degmooyinka Somaliland kooxo ku galaya xaaladda nololeed ee dadka inta ay gaadhsiisan tahay abaarta. waxaa ka mid ah gobollada ay kooxahaasi gaadheen gobolka Togdheer oo ay dhowrkii maalmood ee u dambeeyayba ay kormeer xaqiiqo raadis oo kusoo kala bixiyeen isla markaana ay ku eegayeen heerka abaartu gaadhsiisan tahay. waxaana ay sheegeen kadib deegaano badan oo ay soo mareen in loo baahan yahay gurmad dhinacyo badan taabanaya. kooxdan xaqiiqo raadiska ee ku sugan gobolka Togdheer ayaa waxa ay xuseen in ay jirto caafimaad xumo dadka iyo xoolahaba haysata, taasi oo sababtay nadaafad la'aan iyo biyo la'aan ku habsatay goobaha ay dadkaasi ku sugan yihiin. sidoo kale dhibaatooyinka ay kooxdani sheegeen ayaa waxaa ka mid ah xanuuno badan oo xoolaha ku dhaca sida furuqa iyo caalka. waxaa kaloo ay tilmaameen shubanka carruurta ku dhaca kaasoo sababi kara nafaqa darro ku timaada carruurta yaryar. deegaanada waqooyiga ee gobolka Togdheer ayaa ugu liita deegaanada ay xilligan u baahan gurmad ee qayladhaanta ku wajahan biyo yaraanta iyo xanuunada haatan la taala dhacayaan dadkaasi. roobabkii guga aan si fiican uga da'in iyo jilaalkoo daba dheeraaday ee sababay abaartii iyo biyo dhaamiskii dabada dheer ayaa waxa ay keeneen in deegaano badan ay saamayso nolosha mustaqbalka dhow ee reer guraaga ku sugan yihiin deegaanada bariga. waxaana ay dadkaasi intooda badan kusoo xaroodeen magaalooyinka waaweyn ee gobollada iyo degmooyinka Somaliland. qaramada midoobay iyo beesha caalamka ayaa raadka ay ku lahaayeen ka qayb qaadashada abaarihii dalka Somaliland u kala dambeeyay gaabiyay, walow xilligan aan la karin kaalinta ay kaga qaadan karaan ka hortagida masiibooyinka dhaco oo dhinaca abaarta ah. kooxahan uu ku galayay xaaladda abaaraha ee ka socday xukuumadda Somaliland ayaa soo maray deegaano badan oo ka mid ah gobolka Togdheer, kuwaas oo ay ka mid yihiin Nasiye, Waraabe iyo Sanyare, Kalbare oo kale oo badan. waxaana ay xilligan ku sugan yihiin xarunta gobolka Daadmadheer ee Oodweyne. si kastaba ha ahaatee xaaladaha roob yaraanta waxay kusoo beegmaysaa xilli gobollada galbeedka Somaliland ay toddobaadyadii ugu dambeeyay ay ka da'ayeen roobab. Cabdirasaaq Faarax Cabdilaahi, Cabdirasaaq Nakruma, shabakada caalamiga ah ee Burco Online, xarunta gobolka Togdheer, Burco.